kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa rasmi Somali TV marka hore subscribe saar oo furo gambaleelka siina share garay muuqaalka maanta waxaan warbixin idinkaga hayaa musalsalkii aadka u xiisaha badnaa ee aad jecleedeen ee Miiraan iyo Rayaan ama taxanaha Herkay muuqaalka waxaan ciwaan uga dhignay Aziza oo ay u dhamaatay argoosigeediina dhamaaday Hazar oo ugu dambeyn guuleystay iyo dhacdooyinka goosgooska koobaad ee xalqada 31 ee taxanaha Herkay waxaa la soo bandhigay goosgooska koobaad ee xalqada 31 taxanaha Herkay ama musalsalka Miiraan iyo Rayaan haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa goosgooska ayaa ka bilaabanaysa Rayaan oo leh wax walba haatan way isku soo dhamaadeen Azizoy hadda kadibna been kasta oo aad sheegto waxba ma tari doonto mana suurtagelin doonto in qalbiga Miiraan madoobayso kadib waxaa ku xiga Miiraan oo warqadii Hazar uu ka soo qaaday u dhiiwayo ayadiisa Aziza waxa uuna ku dhahayaa akhri warqadan kadibna xaqiiqda rasmiga ee jirta ii sheeg kadibna markii ay Aziza aragto warqadii Dilshaa ay u qortay Hazar iyo in sirtii la ogaaday naxdin ay la dhacaysa waxa xiga Aziza oo la kulmaysa Xaniifa kadibna bahal dharbaxa ah indhaha kula jiidayso ayadoo ku leh waad iqayaantay waxaan dhan adiga ayaa ka dambeeya haddana waxa xiga Xaniifa oo xili dambe guriga reer Sodoglo dhuumaalaysi ku galaysa ayaa waxa arkaysa Rayaan waxa ayna ku dhahaysaa xagee saacan ka timid waxa ku xiga Suldaana oo Miiraan iyo Aziza ku dhahaysa warqadan waa xaqiiq waayo markii ay Dilshaa qoraysay meesha ayaan joogay waana ogaa kadibna waxa xiga Hazar oo soo galayo qasriga reer Aslam Bey kadibna dhahaya argoosigii Aziza Aslam Bey wuu soo dhamaaday khalaas daawadayaalna la socda mar walba waan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinka iyo goosgoosyada taxanaha Herkay ama musalsalka Miiraan iyo Rayaan oo meel xasaasi maraya ha iloobin inaad subscribe saarto